ciidamada Soomaaliyeed maanta maadaama la tababaray amnigooda ay ku fulan yihiin waxaan codsanaynaa in si degdeg ah gobolkaas ciidamo loo geeyo waliba ciidamada sida gaarka u tababaran oo special ka oo danab iyo gorgor ay kamid yihiin in halka la geeyo gobolkaas waa gobol dadkiisa ay diyaar u yihiin inay isdifaacaan Soomaaliya waa dal madax banaan sida Itoobiya dal madax banaan u tahay wadamo badan ay yihiin qadiyada madax banaanida dawladda Soomaaliyeed meel cad bay ka istaagtay annagu wadaanahay xildhibaanadii dadka shacabkaas matalayna waxa waajib naga saaran yahay in arimaha noocaas markay dhacaan inaan dadku u kala cadeyno oo dabcan waa dareemi kartiin duruufaha ku hareeraysan dadka reer Hudur ee loogu faa'iideystay in maamulka koonfur galbeed oo waqtigiisa hore u dhamaaday mandate-kii loo doortay isagoo ka faa'iideysanaya duruufahaas amni duruufaha siyaasadeed ka jira wadanka inuu uga faa'iideysto inuu shacabkii u isticmaalo shacabkii la soo abaabulo shirkeenana ujeedadiisa dabcan warmurtiyeedku ku qornaa kaliya waxaan rabnaa inaan adkayno wax maanta ka dhacay Xudur gobolka Barkool degmadiisa Xudur oo ah banaanbax loogu soo horjeeday imaanshaha lagu sheegay ciidamada ka imaan doona dawladda Masar oo walaalanahay sidoo kale la leeyahay Ethiopian baan rabnaa dabcan dadka Soomaaliyeed iyo dadka degmada Xudurba waxay og yihiin qadiyada ka jirta Itoobiya Soomaaliya ka dhaxaysa oo ku saabsan madax banaanida wadaneed oo ay diiday Itoobiya taas marna ma ahmid marmarsiin looga dhigan karo oo amniga iyo joogitaankii atomis ay ku joogtay dawladda Itoobiya ay Soomaaliya ku joogtay Soomaaliya waa dal madax banaan sida Itoobiya dal madax banaan u tahay wadamo badan ay yihiin qadiyada madax banaanida dawladda Soomaaliyeed meel cad bay ka istaagtay annagu wadaanahay xildhibaanadii dadka shacabkaas matalayna waxa waajib naga saaran yahay in arimaha noocaas markay dhacaan inaan dadku u kala cadeyno oo dabcan waa dareemi kartiin duruufaha ku hareeraysan dadka reer Hudur ee loogu faa'iideystay duruuf baa loogu faa'iideystay oo ah duruuf amniyeed in amnigooda la sugay in ay sheegadi muddo ay ciidamada Itoobiya sidoo kale caawinayeen laakiin ciidanka Itoobiya Soomaaliya waxay ku joogeen mandate amisom waa la bedelay atomis bay ku joogeen ma aha amniga ay Soomaaliya ay ka caawinayeen iyo mandate-ka amni ay ku joogeen inay ku bedeshaan madax banaanida Soomaaliya dhulkeeda iyo badeeda iyo hawadeeda taas ma aha wax suurtagal ah taas ma aha wax la aqbali karo taasna ma aha mid marmarsiin looga dhigan karo in maanta lagu taageero oo joogitaankooda ay noo joogaan waan dareemi karnaa dadka reer Xudur go'doonka ay ku jiraan muddada fog oo 10 sano ah waan dareemi karnaa halista amni ay dareemi karaan oo hadii ay ciidamada Itoobiyaanka ay ka baxaan laakiin maamulka koonfur galbeed oo waqtigiisa hore u dhamaaday mandate-kii loo doortay isagoo ka faa'iideysanaya duruufahaas amni duruufaha siyaasadeed ka jira wadanka inuu uga faa'iideysto inuu shacabkii u isticmaalo shacabkii la soo abaabulo in gobonnimadoodii iyo qarannimadoodii inay diidan yihiin looga dhigo waxaan leenahay shacabkeeni duruuf baa idin kaga faa'iideystay ma aha wax idinku waa ogoshiin waan idin ognahay shacabkeeni baa tiin waan naqaanaa inaadan ii sheeg adi wax idinku is soo abaabusheen soo istaagteen tiin laakiin waxa ay ahayd dhacdo loogu faa'iideysanay maamulka waqtigiisu dhamaaday uga faa'iideysanay maamulka koonfur galbeed waa la socotiin muddo 2 sano si sharci daraa meeshii uu ku jooga wuxuuna diiday inuu la dagaalamo shabaab dabcan wadanka waxa ka socda dib u horeyn oo khawaarijta lagu la dagaalamayo waxaad ogtiin dhamaantiin ummadda Soomaaliyeed in koonfur galbeed ay tahay state-ka kaliya aanan ka socon wax dib u horeyna kaliya ay ka socoto isku dir qabaa'ilada ah isku diray dadkii deegaanadaas ka soo jeeday iyo dawladda federaalka isku dir iyo joogitaan sharci darra in kursiga lagu sii fogeysto taas marna suurtagal ma aha wax suurtagal doonana ma aha waxaan uga digaynaa maamulkaas sharci daraad markii hore meesha ku joogteen waxaadna rabteen in kursiga idinku ilaaliyaan qolada Itoobiyaanka meesha joogo aad sidaa ku joogtaan sharci aan ahayn marka waxaan leenahay shacabka reer koonfur galbeed qadiyadooda iyo jiritaankooda iyo Soomaalinimadooda way ka weyntahay in gobonnimadooda loogu bedesho maamulka ku mashquulsan abaabulka maanta Xudur ka dhacay la diyaarinay degmooyin kale in lagu qabto waxaan leenahay ka digtoonaada dawladda Soomaaliyeedna wadankan iyaga mas'uulka ciidankii joogi lahaa iyo ciidankii ka bixi lahaaba dawladda Soomaaliyeed mas'uulka
dawlad goboleed gaar ulama gali karta dawlad ciidankii joogi lahaa iyo kuwii la keeni lahaa taban Ethiopia door bay ku lahayd maantana Ethiopia Soomaaliya iyada ka gardaran oo adduunkana uu og yahay Soomaalina way ogtahay in madax banaanideeda qarmeed iyo badeeda lagu soo gardarayso waxay Soomaali raali ku noqonaysa maaha shacabka aan matalaynana raali kama aha daruuf baa loogu faa'iideystay hal fariin baan rabaa ugu muhiimsan in halkaan ugu dambeynaan ka diro dawladda Soomaaliyeed waajib baa idan kaga saaran sida haddaba laga bilaabay gobolada ciidamada Soomaaliyeed maanta maadaama la tababaray amnigooda ay ku fulan yihiin waxaan codsanaynaa in si degdeg ah gobolkaas ciidamo loo geeyo waliba ciidamada sida gaarka u tababaran oo special ka oo danab iyo gorgor ay kamid yihiin in halka la geeyo gobolkaas waa gobol dadkiisa ay diyaar u yihiin inay isdifaacaan dadkiisa inay la dagaalamaan shabaab diyaar u yihiin kaliya kaalmo u baahan marka waxaan codsanaynaa ciidan dawladda Soomaaliyeed ka codsanaynaa shacabkaas daruufta looga faa'iideysanay in si dhaqso ah ciidamo ka socda dawladda federaalka oo qalabaysan oo kuwii tababaradii ugu dambeeyay la soo siiyay in halkaas la soo gaarsiiyo waan ognahay lafta gareena horey u diiday in la geeyo ciidankii meesha loo diyaariyay dhowr guuta la diyaariyay loogu talagalay in baydhabo iyo xudurba la geeyo lafta gareena diiday isagoo u arkay halis ku ay ku tahay in meeshaas ay u xirxirnaad waxaad ogtiin iyadoona la tagi karin doynuunay ama maanyafuulku iyo 2 kiiloomitir u jirta inuu dhibaato ka wada degmada Bardaale shacabkeeda maalin walba ku dhibaateynay oo diyaarad u qaaday waxaad ogtiin in dhibaatooyinkiisa degmooyinka Koonfur Galbeed intooda ugu badan dagaalo ka wada isagoo diyaarado ku daabulay ciidankaas wuxuu awoodi waayay in maanyafuulku tago laakiin wuxuu mataqaana awoodaa inuu isku dirka beelahaas iyo joogitaankaas sharci darrada uu sii wata marka waxaan leenahay arintaas dawladda federaalka mas'uuliyad ka saaran tahay dawladda federaalka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka codsanaynaa koow abniga deegaanadaas idinkay mas'uuliyad ka saaran tahay waa in si dhaqso ah ciidan loo geeyaa labo Koonfur Galbeed daawadeedii caafimaadkeeda iyo inay shabaab iska xureeyaan waxay ku xirantahay in doorasho laga qabto in si degdeg ah doorashadii loo madlanaa oo November ah waqtigeeda la dhaafin taasaan ku baaqaynaa aad baad u mahadsantiin salaamu calaykum wa rahmatullah